kulanti wacan dhageystayaal barnaamijka ganacsiga ee toddobaadkan qodobadaan ku eegi doono waxa kamid ah saameyn ballaaran oo sicir bararka ka jira dalka Soomaaliya oo ku yeeshay dadka dhaqda iyo kuwa ka ganacsadaba xoolaha nool gaar ahaan gobolka Hiiraan sicir bararka guud ahaan saameeyay maciishada iyo suuqyada ku yaala dalka Soomaaliya waxa sidoo kale uu taabtay dadka xoololeyda ah ee dhaqda ama ka ganacsada xoolaha nool wadankaasi Soomaaliya kuwaasi oo isugu darsantay abaaro ba'an oo halkaasi ku habsaday gobolada qaarkood iyo sicir bararka maciishada wadankaasi gobolka Hiiraan ayaa kamid ah meelaha ay dadku ka cabanayaan isbeddelka ku yimid qiimaha xoolaha nool Ayaanla Xuseen Cabdi ayaa waxa uu la kulmay qaar kamid ah dadka xoololeyda ah oo warbixinta nooga soo diray xoolo-dhaqato fara badan oo ku nool gobolkan Hiiraan ayaa saameyn toos ah waxa ku yeeshay abaaro daba dheeraaday iyo sicir barar baaxad leh oo ku habsaday dhammaan qaybaha maciishada kaasi oo gaaray in dadka reer miyiga ahi ay waxba iibsan waayaan halkani waa suuqa xoolaha lagu iibiyo ee magaalada Beledweyne waxaa ku sugan xoolo fara badan oo isugu jira ari lo geel iyo dameero kuwaas oo iib keensadeen inta badan dad reer miyiga oo masaafooyin kala durugsan ka soo safray xoolaha suuqa jooga ishoodu aad ayay u kala duwan tahay kuwa ayaa hilboon oo dhiigoodu jooga halka kuwa kalena ay ka muuqato waqtiga iyo abaarta maanta jirta Deerow Maxamed Xasan waxa uu ka mid yahay ganacsatada xoolaha iibsada waxaana BBC-da uga warramayaa qiimaha xoolaha suuqani maanta laga siiyo waxaan ka taaniga ariga jarka idaha iyo urguda reer bariga u yaqaanaan gabgablaha oo yarka iyo qobashka waaweyn marka wallaahi xoolaha waa qaali lamana hela waligay ma arag maxaan ku raad suuqan oo sidaan abaar xun baa ka dhacday wadanka xoolihii goboladii laga keenay wala soo safrin waayay waa baabeen wax aad la socon waayay wax meesha la soo mari lahayd maxaan ku raad abaar la soo socon sidaas ay noqdeen marka haddii aan qiimaha kaaga warramo xoolaha qiimahooda aad u fiican yahay abaartan inkastoo abaar ay jirto neefka la keeno si kastoo yahay waa gadma urguga weyn malyan iyo 100 ilaa malyan ilaa 900 sidaas saddex raqam kala gadnaa wananka waa sidoo kale waaweyn iyagana malyan ilaa 700 800 yarka ku xiga oo lambar 3ga iyagana waxa weey maxaan ku raayay sheegay waxay maraa iyagana ilaa 700 ilaa 600 marka ariga dibaaxa sidoo kale isagana ridi nool oo kawaanleyda ay qalanaysa islaamuhu meejiska iyo ama muraadlaha ay gadana iyagana malyan ilaa 500 baa ugu yar inta u dhaxaysa la gadaa xoolaha qiimahooda aad u fiican yahay hadii xagga dhanka geel aan ku gala geel isagana qaali waay oorta oo waaweyn oo maxaan ku raayay sheegay jitade waxa gata maxaan ku raada waa la dhoofiyaa waxa la gadaa malyan maanta 16 baa hata la siiyay 16 malyan marka ilaa adigu maxaan ku raayay sheegay 10 malyan 12 12 13 9 malyan baa ugu yar geela dhaqaalka iyagana xagga iyo waxa looga maadaa isagana ilaa iyo maxaan ku raayay Kismaayo ilaa iyo Baydhabo isagana dhaqaalka waa la gataa oo waxa u jooga ganacsi doonaya u jooga isna waa qaali qaanada geel oo 5 jirka 4 jirka waxa la gadaa 7 malyan 6 malyan ilaa 5 malyan sidaas wax la kala siistaa ayaan low waxaad igu warantaa muuqaalka ariga hadda ishoodu qaarkood way kala duwan yihiin ari qaar waa qurxan yahay oo midabkooda iyo nafaqa ayaa ka muuqata kuwa kalena way liitaan marka xoolahaasi xagee kala yimaadeen والله يان لو هدان خلاص أنكور شيء دنك هرت بريق حولا كي ماذا دنك كان محن كور هذا إيش بير جديد إلى متبان كيمانا إلى ومحاز محكوري ما لها فوق أو مع قرنته أنك لو قبل حولا لكن لو كان باورت لو كان حولا سوي حولا هذا حوجات دي جل دنك كان قرح سنك حولا إيجنا كي ماذا حولا إيجنا ما لها فوق إيجنا كي ماذا قرنته إيجنا دي جود وفي عين لكن وحي وبيد يعلش يودو حولا بابا ومدبات كاركس حولا سوي marka nolosha sidee u saameysay dadka reer miyiga ah ee ariga ay soo safarsanayaan maadaama laga yaabo arigiisa inuusan nafaqo badan lahayn oo abaartu la hartay taas abaarta lagama sheekayn karo nin baa ku dhahay arigaygu wuxuu waay 200 neef waxaana ka joogta 50 neef ay kuleeyeen qaar ma caadi taas ma say u saameysay wax la sheegi karo ma neefka ay gataan waxay kuleeyeen neefkan kala baxay milyan wuxuu iigu hal loorki baa milyan joogaba oo badarka hay marka aad bay u saameysay marka haddii arigaas oo kale la qiimeeyo meeqa ari ayaa goyn karta sida aad og tahay loorkii sokora wuxuu marayaa 1 milyan meeqa neef uu ku iibsanaya والله أرجع اسمه ما نبار نف نول إما ذا يقولوا سكحرنا يوم ملين كلور وقولنا ننا على جيابا إنش نف لور كلا بحبا dadka xoolaha iibka ayaa qaarkood waxa aad uga muuqanaya muruga xoog leh oo ku saabsan xoolaha iibkeensadeen iyo xaaladda suuqa oo aan marnaba la isbarbar dhigi karaynin sida odaygan oo magaciisa la yiraahdo Aadan Abikar Cadow oo ari aan badnayn ka soo safarsaday aalka baar ee magaalada Beledweyne
iibkooda 250 200 saway ariga oo kale nafaqadooda ka waran ariga nafaqa ma leh biyo ma leh waa sida ilaahay wax ka sugayna mar maxay ku goysaa marka raashin isku bedelat loor oo shimuuriga ku beddeshaa loorka shimuuriga waa imisa marka 450 saddex neef waa sida waa gartay marka maxaa u sabab isleedihiin ma xoolaha abaartu la hartay oo iyagu ay nafaqa lahayn mise micishada kacday sixir barka kacay waa sida abaar waa arki jiray laakiin talo kale ma soo marin marka abaartan markaad u fiirsato iyo abaara hore oo aad soo aragtay maxay kala duwan isku sidii leh waa biyo laakiin biyo la'aan u dhaxays ceelasha biyo ma leh waa sida maxaa isleedahay marka xoolaha oo kale waa loo qaban karaa ilaah waxa qaban kara bilaadan waxa qaban kara ma bajee ilaah waxa qaban kara madara ilaahay ka sugayna waa sida waxa qabashada ma baarkaynaba andaan wacdinana waa sida farax sugu iido baa leeyahay farax waxaad iga warantaa xaaladda xoolaha halkan aad keenteen iibkooda xoolaha aan halka keenay iibkooda haddaan kaaga warramo maqaar qoyan waayo waxaan keenay ma xoolo suuq la keeno la iibsadaa ma jiraan saaka maqaar qoyan marka maxaa ula jeedaa maqaar qoyan walaxan hilib la cuno lahayn daruufuna dadkii ku soo qabato la iska keenaa suuqa waay oo haddii lagaa gorgorina aad madax wariiri waxa lagaa gorgorina maxaa u sababa waxa u sababa waqtiga kulul iyo mucjiso cudur oo ilaahay keenay intaba waddanka iskula jirto waxa u sababa marka goormaa timid marka suuqa shalay aan imid 16 neef oo ariyaanke wax laga iibsaday la intaana ay joogto aad uma arkayda 10kii ala eegadi 6diina ku aan rogaan 10ka ka waran soo hadii laga iibiyo 10ka soo faa'iido kuma qabtay faa'iido kuma qabo ilaaha faa'iido la laakiin faa'iido kuma qabo neefku u badan aan wax gatay 230 suuqa wax ugu doonado wax baa ogtahay ka waran maciishada magaalada taala ee wax lagu iibsado sayid saameys wax aqli dhaaf waay waxaas wax la iibsadaa ma jiraan wax la sheegaa wax aqli dhaaf waay dad wax iibsada ma dartaa hal iibsana hal iibi kara nin neef ishkii ma boqnogoysana nin kale dadku waa baqti wax la iibsadaa ma jiraan markii suuqa tagtaan loorka biis maxaa laga siiyaa suuqa magaada neefka diida milyan iyo lacag laga siiyaa milyan boqol milyan saas awraad dambeeyay baryahan aanu warba u hayaba oo dadka miyiga jooga waa ka lagu laabtay loor bariis maxay ku nool marka dadka miyiga jooga loor masaga oo 800 jooga ku nool yihiin shumuureeya oo midda uriyo baawlu soo socdaan aan waxaan gadanaa 500 aan gadanaa loor maxaa lagu goosaraa marka wax ilaahay abuurto oo biyaha lagu dara ahayn dadka guriga agtiisa yaanya ku goosaarta bahal leeyahay meelaha lagu dhigo gadgaduuda wax kale oo lagu goosaarta ma jiraan marka dadka idinka webiga waad ka fogtihiin oo hadda beerahaas wax biyaha lagu karshijo waan ku liqliqnaa marka dadku deji waa wallahi xoolaha loo dhigay billahi inayna beenayn mugo dadka intuu mari waayay xoolaha xigta loo ridaayay sax xaganaan xoolo dadka biyaha saas ugu nool yahay maxaad isleedahay marka dhibaatadaas faraha badan ee aragteen waa laga qaban karaa ilaahaygi weynaay wax ka qaban kara haddii lagu noqdo goorba dad dhaqdhaqaaq laho oo haddii rabbi kaashado wax ka qaban karaa waa jira ma helaydiga helaayo kastaad aragtiin haddii kaa cuna guri ku dhisana saasaan anagu aan wax u arag yaa sabab u ah sicir bararkan idin saameeyey maxaase ugu baaqi lahayd dadka ka dambeeya waxaan u baaqi lahayd dad allahooda la yaho islaam hadday yihiin laba mitir aa dadka sicir bararka inay ummadda ka dhaafaan risaqood ilaahay ahaaye intay horey u shaqeeyaan haddayna wax ku darin inta kadibna wax kuma tarto saasaan leenahay si kastaba waxaa adag sida looga gudbi karayo dhibaatadan baaxadda leh ee soo food saartay xoolo-dhaqatada soomaalida oo lafdhabar u ah dhaqaalaha dalka soomaaliya waxaana dadka reer miyiga ahi uu dhaqaalahoodu si toosa ugu tiirsan yahay hadba iibka uu suuqa ka marayo neefka ay wataan kaasi oo ay ku beddeshaan waxa ay ku noolaan lahaayeen warwarka ugu weyn oo ay muujinayaan dadka reer miyiga oo qaarkood aan la sheekaystay ayaa ahaa in roobka sanadkan la filayo haddii uu di'i waayo ay khatar sii galayso nolosha dadka reer miyiga ah oo ayan jirin dawlad si toosa u caawisa ayaan la xuseen cabdi barnaamijka ganacsiga b b c beledweyne warbixintaasi ayaanu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii ganacsiga ee toddobaadkan intaannu mar kale kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo شردي بومرا يارسي بردوين كتالي يوم تقول كنت فتير ماي